السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسلمين توا سلام يا. horta marka hore anigu waxaan joogaa dhulka Soomaaliyeed waa ku dhiblaahay ma kamaan joomin haddaan Soomaaliya u tagay alright waxa sax ka dhigay Itoobiya kaga u gudba waxa sax ka dhigay ee xaraan ka dhigay ninka Soomaaliya u taga ee mucaarad la gala ciidamo ku urursada taas waa midila la yaab leh talabaad wasiirka gaashaandhigga Hargeysa waanagii saragnay iyo fulay iyo kalmac dhexdooda waanagii kugu qabtay anigoo ixtiraamaya beesha warsangeli waana ku hor iska arag ina kaahin baan doonay inta koolitaas ay ahayd eeman karaan warsangeli waxba oran maayo waxna u geysan maayo dhulka iyo deegaanka waa naga dhaxaysa adiguna dhulka yagi waad soo martay aan deganayn aniguna waa dhaxmaraa waxna uma geysto waayo dhulka naga dhaxaya deegaanka waa naga dhaxaysa dhulka aad soo marto ee u soo marto markaad ka timaado Hargeysa cid baa leh beeraa leh dadkuna waa qoliyo askarta waxba oran maayo soconaysa waayo waa askartaydii dulmigun baa loo iftiiminaya dadka markii aan dhex maray abaar iyo biyalaan baa haysatay caalamkana waanu sheegay dagaal kuma tagin kuma tagin waa taasoo ciidamo lagu soo raray alright intaa ka bacdi wasiirka waxaan leeyahay markaad warsangeli wax u qabato aad saraakiisha warsangeli faamos ka dhigto kalama digto kuwa musabiixi ayaan kula hadlayaa doona haddii alla yidhaaho waayo sababtaa ina macalin iyo cabdirasaaq bad horgalla ka soo dhigtay oo aan baabuur lahayn xuseen dheeraan ogaa oo guutada 93 haysta xaylaan ogahay wuxuu ku guuro ciidankaan ogahay inay zabaara ku dhaansadaan markaad u qabato iyaga ayaad wasiir noqon doontaa haddii alla kana turjumi doontaa arrimahooda intaasina waa intaa beesha warsangeli waxaan leeyahay anigu horseedu ma yihi dagaal horseedu ma yihi beesha warsangelina waxba igama haysato lana dagaalami maayo waxna u geysan maayo ninka la dagaalamaya waa ninka maanta intuu soo dhoobay ciidan yube tignika soo dhoobay dawadiisa soo qaatay dul fadhiya yaa keenay dhibaatada isaga keenay dulmi weeyi abaar baa haysato iskuulla ma leh MCH ma leh arrimaha bulshada faaq ka yihiin haddana wax doonaya inuu xoog ku qabsado dhici mayso annagoo la degan dowladda Puntland waajibkay qaadato maan ka qaadan doonaa haddii alla yaaho insha Allah tay ka qaadato maan ka qaadan doonaa dad baa waxay ku noolaanayaan waa isaaq waa kan wax isaaq la yiraahdo ma jiraan cooperation way iskaashi way haddii isaaq jiro maamulka loo sinaan lahaa cadaaladda loo sinaan lahaa ummadda dhan baa sinaan lahayd qoladu waa wax jira shucaa'iman wa qabaa'ilan tacaarafu baa ilaahay yiri waa wax la isku yaqaan aniga carruurtooda waa isnaqaan laakiin wax isaaq la yiraahdo ma jiraan Soomaali waa Soomaali sinjiyada diintu waa diintii islaamka dhulku waa dhulkii Soomaaliyeed iyagaanu la joognaa waan ka dhigac dagaalami doonaa haddii alla yidhaaho dhulkan annaga naqaniyo waddooyinka laga galo wixii laga dhaxlaa la heli doonaa taasina waa intaa inanka yara ceergaabo jooga ee ku dhashay coodan le Faysal Cabdi Bootan isnaqaane xiniyaha gidiwa maanta waa ku jiraan haddii alla yidhaaho ceergaabana waa ceergaabo
gudahay kaaga qarxi doontaa wallaahi 6 gobol bay ka qarxisay bilaahi tala hadaan ka qarxin aniga aan ahayn adaa yaa barki doona hadii alla yahay ciidanka aad wadataan oo qaayigi waa dadku maalin walba noo yimaado waa ina madayasi waxaad ka doontaa gaadiidku halka dhooban dhinacay ka dhooban degdeg hadii aan loogu noqon meeshii waxa la arki doonaa talaabo taa ka bedelan jabhaduna meel walba way joogtaa qoladayadii aan heshiiska hayna soo booqdo waxaan leeyahay alla jilicsanaayo dhawa reer laascaanood dardaarankan siinaya waxa way faarq way maanta talaabaha la qaado mid ku habboon la qaado waliba saraakiishii waxaan leeyahay mid ku habboon la qaado hal iska cisho waxa qolka aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu